administration nadiifa adduunka laga helayo Soomaaliya laga heli maayo laakiin administration kii hore seen wala ognahay adduunkana ogyahay Soomaaliyana ogtahay waxyaalaha kali oo credibility-ga oo ku fiicnaan waxa kamid ah inay ciidan ay dhiseen waxaan u malay ciidankaas Turkiga iyo badankood lagu soo dhisay jilliga ciidankaas Turkiga lagu soo dhisay 10 kun inay ku dhawaayeen ama ahaayeen baa la sheegaa Eritrea 5 kun oo ciidana ayaa iyagana lagu soo tababaray ciidanka overall waqtigaas xasan lagu wareejiyay waxaan u malay inuu over 20000 ahaa 10 kun ay elite ahayd ama dhowr 15 kun ay elite ahaayeen ciidamada Gorgor Haramcad iyo ciidamada nabadsugudu ayaguna markaa tayadoodu ay fiicnayd oo runtii gaalka dilbaa la gartiisa si administration ka horeeyay nabadsugudaanu waan tagay koorna waan tagay kadibna waan tagay kadib markii ay farmaajo ay dhacayeen administration meel aad qiimo badan oo laga shaqeeyay oo waxyaalo la taaban kara lahayd kadib anu wali maana tagin meeshii si laakiin waxaan xog ogaal u ahay ciidamadii Soomaaliyeed ee maanta horta waxay ahayd December tan inay la wareegaan dalka Soomaaliya nimankan ay ka baxaan Soomaaliya ciidankii Soomaaliyeed burbur baa ku yimid burburkaas waxyaalo badan baa loo sabaynayaa waxa loo sabaynayaa madaxdii ciidanka tababartay ee taqiinay ee ka soo shaqeysay baa la bedelay ayaga oo loo bedelay siyaasado darteed oo loo bedelin khata amni ay keeneen ama hawshoodii ciidanimo iyo saraakiishii ragii xukuumadda dalka in aynan ka soo bixi waayeen darteed aan hayn waxa loo bedelay siyaasado iyo amar aan sax ahayn umadahuna waxay wax ku gaaraan dadka ciidamada iyo institutionada madaxda u baa la bedelay markuu madaxweyne Afrikaanka iyo ceebadooda waxa kamid ah waxa laga argoosan administration-kii hore dadkii la shaqeyn jiray oo dhan waa khalad saraakiishii ciidankan tababartay ee gacanta ku haysay ee dagaalka gelinta qiine ee logisticoodii waxooda gacanta ku haysay baa la bedelay niman kale waxa la keenay ciidanka baan shaqo ku lahayn oo kan wasiir difaaca ciidanku shaqo ku lahaa niman waxa la keenay cusub taliyada waa baa la bedelay waxaa la bedelay ninkii ciidamada lugta haystay ragii ciidankan la tababartay la jaan qaaday ee ciidanka yaqiin ee ciidankan ay ku kalsoonayeen baa la bedelay rag kale oo lagu keenay waxaan sharciga islaamkana waafaqsanayn qaanuunka dawliga ee aan qaabsan Soomaalinimadana aan qaban ciidankana aqbalin baa la keenay niman ciidan shaqo ku lahayn baa la keenay jeneraal loo tahay laakiin wasiirka difaaca oo kale dawladda horena uu ahaa haddana weli uu yahay lama bedelin Soomaaliya oo wasiir difaac buu farmaajana hadduu doono oo aado administration-kii hore asagoo administration kaamil oo nadiifa ma ahayn waxyaalaha hadda badankooda hadda blueprint-ka xasan uu raacayo kuwii hore waxay ka tageen baa kamid qaybo badan oo dawladda hore ay lahayd inahoodii uu sii raacay iyo sii jaan qaaday inay daliilahaas inuu dhaqo وحسن مركو معارض كهواد وجهد للشري. مركا فيتبعون أحسنها كلمة أحسن مون صمينين وحويان وحي استحضها بالدا وعي وحي حمان ولا سي حمي. كرتي مثلا إذا ماذا واحد تري والله ويقي وحي دباتوين بدنا كوي ما تكو بدنا administration كودينا ولا بدلوا سياسة اللي بدري سكستبا dadka qaar waxay sheegaan in ciidamada dadkii madaxda u ahaa la baabashay oo safka hore dagaal la gashay si ay u wiiqmaan iyadoo lagu talagalay in la gumaado arintaasna ay faragelin dawladda shisheeye xataa ay ku leeyihiin maxaa ka aaminsantaa adiga ana waxaan aaminsanahay ciidamada dalka xooga Soomaaliyeed in dhaawac badan loo geystay waxaan iska aaminay waa waxaan baxthi aan sameynay dabagal aan ku sameynay dad badan oo siyaasiyiin oo xildhibaanada oo dawladda ku jira naftigooda aan weydiinay saxaafada aan ka akhrinayno لأنه إلهي سبحانه وتعالى وحول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وحيالها أن دولته كلها لعين إنه واحد من السوشيال ميديا عن كم غلنا معها وحيالها تابن كرو وما الصوماليين وجود بناء كخلنا وجوده أيضا كان لوجستيك حما بها بإصي iyo inay gabasha shay kuleeyihiin shaqana shakil aan weeytaas sababtoo tahay ma ciidankaaga adigu markaad hadda waxa tusaale kaaga soo qaadaya ciidankii caws weyn lagu laayay maxay ku baabayeen logistic xumo
saraakiisha ciidanka haysatay oon daacad arrinta ka ahayn ciidanka oon logistic iyo nabadgelyo iyo security loo samaynin intelligence failure waxyaalo badan oo isku biirsaday ayaa ciidankaasi ku go'ay markuu arrinta noocaas oo kale dhacdana waa in tallaabo sharci la qaado baarlamaanka waa dadka u dhaartay inay ummadan xifdinayaan ciidankan waa madluum ciidankan in la difaaco xuquuqdiisa dhaqaalaha sharciga nabadgelyadiisa amnigiisa sixadiisa iyo noloshiisa ahay ciidanka in intii la holaalo lagu daadiyo logistic la'aan intelligence la'aan ciidan aan sirdoon balahayn oo meesha la dejinayo ciidanka ma cadaawa baa u dhow ma ciidanku muxuu meesha miyuu ku go'ayaa ciidankani ma ka bixi karaa meeshaas waxaad ka wadaa kuwii la geeyey Cawsweyne iyo kuwii hadda Ras Kamboni la geeyey waxaan anugu aaminsanahay arrintaas raggii lug ku lahaa in Soomaali la xisaabtanto ilaa kan nin loo cazilay ma hayno madaxweyne is cazilay ma hayno رئيس وزراء إسعازل ما هينو جنرالات عيدما هيستو إسعازل ما هينو كوي دلنيرة أنت تقال لبض قولوا الصومالي ضو مسلمين تأسكور جايين هذانا أيجا كولا بحسين إنه آير كين يسكدي بي واحد سؤال أو أرنتي accountability ما شرته مركز تاسم حيكون تصيصا وحيكون تصيصا أيضا كان سيدي سبائن لقى تخلصه إن ديار لو يهي ciidanka tii lagu ma keenin hadana kuwa kala gada lagu tuurayaa leeyahay marka ciidankan waxa loogu talagalay inuu dalka iyo diinta iyo dadka xuduudiisa difaaco inuu civil siyaasad loo isticmaalo oo aniga iyo hadana sheekh madaxweynaha hadda xasan mesela isqabano ama axmed iyo xasan say isu qabteen oo kala ka soo qaad in loo isticmaalo ciidamada labada dhinac labadu waa khaladka koobaad yaa iskale ilaa gaar Allah yaqaana madaxweynaha iskale iyo ciidii ciidankaas meesha u soo dirtay meesha hay'adda oo dal Soomaaliyeed oo nabadgeliya oo gobol Soomaaliyeed amni ku nool istiqraar ku nool federaalka kamid ah in ciidamada Soomaaliyeed oo kale laga soo kaxeeyo lagu soo duldaadiyo meel hay'adda oo dagaal labadii ciidan dhaxdooda laba nin oo ishaya dartood looga sameeyo waa khayaan qaran